السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتك كسو دوادا سوق السامية مانتا waa November 2022 laba shirkadood saamiyada aan gatay lagu kala magacaabo AYRO and CPAT CPAT iyo IYRO labadaba mid labadaba ka faa'iiday IYRO 3835 halka CPAT na $1830 CPAT waxaa laga leeyahay dalka China dalka Shiinaha wuxuuna ka ganacsadaa electrical equipment and parts halka AYRO laga leeyahay Mareykanka asana wuxuu ka ganacsadaa oro baabuurta soo saara labadaba ka faa'iideysan in sheegay IYRO hadda hoos dhac baa jira zaa'ida dhowr jeer baan gatay viva ku koreysaan gatay ilaa uu ka gaaray 9 u 10 kulwad uu gaaray 9 hadii markii ugu dambeysay waxaan ka baxay aan ku iibiyay 943 $8 markuu $7 maray waan gatay markuu $8 maray waan gatay markuu gaaray $9 waan gatay adi all move-yaashan oo dhan waan ku gatay 7 view ku dhaafay $7 ana 7-9 meelaas buu view ku dhaafay marka it was a good day halka CPAT uu hoos dhac jiro oo maanta markuu ugu koreyso maanta wuxuu gaaray $8.94 suuqa wuxuu ku furmay $8.08 buu suuqa ku furmay haddana $8.65 buu maryaa view-ku waa ka koreeyaa wax xaraka badan kama jirta kan oo haddaa labadooda isku fiirso CPAT ana AYRO farqi weyn baa u dhexeeya chartigooda midna waa saan oo waa ujeedaa clear waa kor buu socday oo xooliga buu ku socday kor dad badan baa gadanayay intaas garanayay CPAT-na ujeedaan mataqaanaa hoos just zigzag ku suubinaya marka labadaas shirkadood baan gatay saamiyadooda video waan ka duubay insha Allah tacaala daawasho waan saacadda waa 9:42 stack wuxuu furan yahay about 12 minutes laba stack baan gatay AYRO oo Chinese company Chinese company ma ah AYRO waa company Mareykan laga leeyahay Texas AYRO laba kun boqol baa negative ka ah 6,000 share baan haystaa CPAT ga $4.80 baan ka suubiyay waa CPAT waa company Chinese labada company waxay ka sameeyeen baabuurta soo saaraan spare partska marka halkaas bay wax marayaan laba stack kala duwan baan haystaa midna waxa weeye AYRO midna waa CPAT so la sii meesha aadaan CPAT 878 buu marayaa 879 buu ugu fadhiyaana
joogaan hofar inay isku soo beegmin inay isku soo beegmaan baa daran oo aan halkaas oo labadooda jaanis ku fiican kaga faa'iidaysan waayo. Okay, let's see ayo si bad oo jeedaan si bad iska iibiyey 697 buu sheegay systemka. Alright, si bad baan gatay marka weyn 877 ayuu fadhiyaa. Still waxaan haystaa AYRO oo hadda soo noqonaya waa kaasa AYRO haddaan iska iibinaya AYRO waa iska gaday. AYRO waan ku noqday. Course baxay AYRO negative badnaa aan ku jira AYRO 240 kaliya hadda ay 3 kuma markii hore ku jiray qiyaastii waa ka soo noqday alxamdulillah. So CPAD baan haystaa. CPAD wuxuu igu fadhiyaa $8.77. struggle badan ka bacdi AYRO waa ka soo baxay. CPAD waa soo noqday. haddaan iska wada gadaya dhammaantiis waa kaa ka hoos baxa asagana. I'm very happy inaan ka hoos baxay.
halkaas 1590 so cpad ku degdegi maayo ilaa uu meeshaas 9 uu gaaro so inta 9 uu ka gaarayo I'll wait AYRO halkaan sida ka muuqata baa dhaafi laaya 832 tiro ilaa 5 jeer buu soo gaaray ka noqday marka halkaas waxaa u taal isbaaro culus resistant baa jira uusan dhaafi karin afterkiisa Janis waxaa la gadan karaa markuu gaaray 847 waa meel 847 waxa weeye meeshii markuu suuqa furmay markuu suuq furmay kadib meeshii uu kareysay uu gaaray waay waa 847 waa meelaha aan ka qiyaas qaadanayo weeye hadduu 832 gaaro good hadduu 847 dhaafana that means waa new high oo maanta uu gaaray waaye intuu suuqa furmay kadib so asana waa sugaynaa inkasta oo cpad asana markii uu korayso wuxuu gaaray 893 maanta mina 847 mina 893 labaas marka dhaafaan baa la haweysan karaa oo la geli karaa la gadan karaa so time baan siinaynaa saacadda waa 10:01 but 31 minute buu suuqa furan yahay nus saac wax hadda oo scannerka soo qabanayo xoogu socdanaya ima muuqdo well still wax isbedelo oo badan ma jiraan saacadda waa 10:15 10:15 ayro waan gatay 6,000 oo share 795 ugu fadhiya baa ka taas ka gaday 780 profit oo taas waa la helay si fiican baa la helay ayro si fiican baa la helay waa right time right place view up course mar view up markuu soo gaarina waan gatay 6,000 oo share degdeg baan gatay waxaan u gatay 795 18 waa CEB that means 15 cent profit hadda waxaan ku noqonayaa haddii ay suurtagal tahay halkaas dhaafo 6,000 oo share kalaan gatay 6,000 aan gatay waa CEB $1,254 profit ah waa ka baxay haddana wuu sii socdaa anlag waa ka haray dad badan baa ka daadanaya oo dadkii short garayaan isleeyahay inay ka daadanayaan sababtaas baa sidii gantaal kor ugu orday still wuu sii soconaya isleeyahay kan laakiin ku degdegi ma hadirtaan because hal daqiiqo gudeed baan waxaan ka faa'iiday 240 minutes ugu jiray adi $2,270 ka subiyay just 2 minutes gudeed sidaa daraadeed hadda ceersan mayo atii hadda waa la howlgareynayaa halkaas baa lagu howlgareynayaa 5 minute buu xirnaanayaa isleeyahay waa la howlgareeyey khald baa lagu subiyey halkaan bay ku caddahay waa la howlgareeyey waa la joojiyey saacaddii la joojiyana waxay ahayd 8:17 and 39 second that means 8:22 39 second buu soo noqonayaa waa haddii ay tahay haddii uu halkaas yahay
5 minute we see إن شاء الله. bardhow ayuu furmayaa AYRO 883 buu ku xirmay. su-aasha marka waxa waye 883 buu ku furmayaa, wixii ka koray mis 883 hoos buu uga dhacayaa. so this is hadda arki doona meesha ku furmaayo. hoos bu dhac baa la jira halkaas ujeeda flash redka, flashka redka ujeedaan. lix kun baan gatay, 6,000 oo share baan gatay. waxay ugu fadhiisaa 889 hopefully wuu boodaya mar dhow. 889 bay ugu fadhidaa 6,000 oo share. waa kaasaa 889 lasi meesha kusoo noqdo. marka waa iska gadayaa. waa iska gaday $390. aati meel hoos khalad baan suubiyey. lacag baa iga luntay kaas. ku degdegi maayo ilaa uu meel fiican gaaro. lasiinu dhaafi doona laga yaabo hadda. lix kun oo share kalaan gatay 880. wuu igu fadhiyaa 6,000 oo share. wuxuu ugu fadhiyaa $8.73 halkii share. sharearka waxaan gaarsiiyey 9,000 oo share waaye.
9,000 shares. halkii sharena waxa waaye $8.73. So $8.75 mar gaaray soo noqdo haddana. I think short sellsiga mar dhow ka boodi doono, markaas way kor u ordi doonaa siduu marka hore suubiyo markuu VWAP ka dhaafayay. Kaasa 889 yes aska wada gaday $1,035 buu sheegayaa inaan igu ka faa'iiday. oo khalad baan suubiyey. laakiin 900 something bay noqotay. profit $4,590 oo faa'iido ah. total saas waaye AYRO 2,760 and CPAT waa $1,800. so halkaas bay wax marayaan. so Janis kale ku jiraa marka $898 $9 markuu gaaro. boos Janiska $8 ka faa'iiday. so Janiska $8 inuu ka gudbo oo u gudbo $9 wixii ka koraysaa. that's the question. $9 waa u gaaray. we have to make sure $9 uu dhaafayo. we have to eegna waayo waxa la dhaho level 2ga. level 2ga ma dadka ma iska wada iibinayaan mise dadka way gadanayaan. haddii dadka iska wada iibinayaan oo level 2 aan ka arko dee ma la gadan karo. haddii dadka ay gadanayaan buy ta oo level 2ga kuu sheegayo shareerka dadka dalbanaya in la gato. because level 2 dalku ku tusayaa let's see 97 98 uu soo noqdo 93. because that's the level 898 maanta dhowr jeer horuu tiraagareeyay uu isku dayo inuu dhaafo. wuxuu tiraagareeyay ilaa ay tirta 4 jeer wuuna dhaafi waayey. so this is the time uu gudbayo. halkaas waa gudbay laakiin aniga maan gadanin sidaa daraaddeed soo noqday. 3,000 halkaa ku gatay oo keliya. now oo same ugu fadhiyo only 3,000 shares. nine 20 uu gaaray areadaas.
I think inuu 920 gaari doono. Kaasa waa isaga baxay waana $17 46.80 waa soo noqday. sheerar badan baan gatay. waa iska wada iibiyey. 4800 juusta ah 4800. هذا لم يصير مشيل راح كوصل بهاي هذا $5,600 iyo $55 still waxaan ku gudi jiraa AYRO $5,655. so this is the mataqaan meel khatar u maraya because suu ordaayo qof walba intuu ku ka baxaya. so adiga the last person oo meesha taagantan khatar waa kugu dumi karaa. so waxaan subinayo waa dhowraya haddii uu soo noqdo laba jeer uu siiyo 2 candle oo guduud ah then waa marka saddexaad kan gelaya. so hadda $10 muu geli doonaa. waxaan filaya inuu soo gudoomi doono. so 971 buu gaar marka uu koraysay. haddana wuxuu soo maray 948 49. This is solo Y, kakano wa IYRO. Solo wili ma aanan gadanin. Like waa hore dhowr jeer gatay. Laakiin aan gatay waa IYRO and CPAT. I think 10:39 Y 1 hour suuqa ku jira 1 hour 9 minutes. intaas baan kusoo gabagabeynaya. waa maalin jimcaha 11 November 2020. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وأنا إسنين. Have a great weekend. Goodbye.